السلام عليكم waxaan rajeynayaa inaad fiican tahay meel walba iga daawanaysid hadda maanta waxaan doonayaa inaan idinla wadaago waxa la yiraahdo qalalka hurdada waxa suurtagal erayga inaadan horay u maqal kulli aniga hadda iska sameystay laakiin sidaas ay noqonaysaa qalalka hurdada ama luqadda carabiga waxa lagu yiraahdo shalalin nawm waxa la yiraahdaa qalalka hurdada qofku marka isaga oo jiifa uu dareemo in la ceejinayo qof dhunta ku dhagan yahay uusan dhaqaaqi karin xubnihiisu dhaqaaqi karin hadlina karin waxa la yiraahdaa qalalka hurdada anigoo in badan ay taasi ugu dhacday wax dabiiciyana dad badan ay ku dhacdo sidaydoo kale dad badan ay qabsato aanan u haynin fasiritaan dhab ah aanan u haynin baxtina aanan ku samaynin ama oon raadinin baaritaan ku samaynin ba maalin dhow waxaan website ka akhriyay website si qurux badan oo fudud oo aqliga aadamaha dhaqso gali karaysa u sharaxay isaga laftirkiisu baaritaan dheer buu ku sameeyay baaritaan dheer kadib wuxuu isiri dadka si qurux badan oo yar oo fudud oo qofkii u fahmi karayo hadii lagu adkeeyo waxba inaadan fahmin baa suurtagal marka si yar oo fudud oo u sharxay quruxna badan runtii ku qancay anigu wax badanna ka faa'iiday idina aan filayay inaad ka faa'iidi doontaan insha Allah aan bilaabo si aan u fahmno mowduucan si fudud waxaan ka dheeraanaynaa laba shay takoobaad oo ah sharax ama qeexitaan cilmiya oo adag uusan qofku dhaqso waxba ugu fahmin oo cilmiya iyo talabaad oo ah khayaali ama been abuur ay sameeyeen dadku oo ah wax walba oo dadkii hore caalamkan aynu ku noolnahay tiknoolajiyadu meel walba qabsatay ma aha waqtigii tiknoolajiyada ka horeysay ee casri jaahiligii ahayd dadku wax walba oo aadamaha maskaxdiisa aan markaa galayninba ama aysan ku baraarugsanaynba waxay dusha ka saari jireen jinni iyo shaytaan marka inagoo ka dheeraanayna inaan wax adkayno cilmi ahaan intaan u sharaxno ka dheeraanayna been abuurka dadku ay gacmahooda ku waxa ka wada aqligooda ay ku ka keensadeen inagoo ka dheeraanayna waxay yiraahdaan dadku qofku markuu seexdo uu dareemo xaaladda iyada ah shaytaan baa saaran ama jinni baa ceejinaya balaaya dusha kaga degan waxaasay dhahan laakiin jinnigu inuu ku ceejiyo aadamaha uu ka awood badan yahay jinku iyo aadamuhu bini aadamku isku awood ma aha kumanaan mar bay naga awood badan yihiin inaga marka jinni inuu qof bini aadama dilo uma baahna inaad seexatid adigoo soo jeedo ku dili karaya adoo soo jeeda oo indhaha u shan yihiin buu ku dili karaa marka uma baahna inaad seexatidba oo kula sugmaayo adoo seexday oo gamaa inuu ku yimaado ku ceejiyo talabaadna waxay tahay jinniga caalamka jinka iyo insiga iyo shayaatiinta ilaahay uu kala qariyay subxaanahu wa ta'ala hal duni baynu ku wada noolnahay jinka iyo maartay shayaatiintuna waa wax nool oo inagoo kale oo dunida ku nool laakiin waa makhluuqaad uu ilaahay ina kala qariyay iyana caalamkooda ay ku nool yihiin inana caalamkeena ay ku noolnahay isma aragno isma maqalno isma urino ma garan karayna anagu waan wada noolnahay jinku wuxuu leeyahay qayb gaalo ah iyo qayb islaana labadaba laakiin waxaynu aragnay waxaynu urinay waxaynu maqalna midna ma aha tusaale ahaan waqtigii markii ugu horeysay dunida ee film la sameeyo lagu soo bandhigo shaleemo waxay ahayd 28 bishii 12 1895 dalka Faransiiska film waxa la sameeyay in yar ah dhowr daqiiqo ah tareen soconaya oo boosteejo soo galaya markii ugu horeysay ee shaleemo dadku ay wax ka daawadaan way ahayd waxa la soo qaaday TV baa la soo qaaday kadibna dadkii waxay fariisteen shaleemadii daawanayay markay arkeen tareenka uu soo dhawaaday waxay u maleeyeen shaashada inuu ka soo dhexbaxayo markiiba way carareen kabtaydii away baa ka dhacday meeshii wax istaaga waa la waayay qof kasta wuxuu aaminay tareenkan soo socda waa dhabo idinku idan jiiraya ee wadada u baneeya kumaysan baraarugsanayn waxaas waxay bilaabeen inay dhahaan oo ku fasiraan may waxan wax caadi ma ahayn shaydaan buu ahaa iyo jinni buu ahaa waxay filimka maysa garanayn inana hadda waxaynu daawanaaba wax la iscunayo iyo wax aan maskaxda aadamaha waqtiga hadii loo fiiriyo aan gali karayninba hadii ay arki lahaayeen si gaara dadka sameecadaha dhagaha intay gashtaan telefonka kaligood isla sheekaystay isla hadla banaanka maraya dadkii waqtiga joogay hadii arki lahaayeen waxay u maleyn lahaayeen inuu yahay qof jin saaran yahay ama shaydaan la sheekaysanaya ama bala ku habsatay oo caadi ahayn ama waa shaydii isla sheekaysanaya marnaba aan fayoobeyn marka aan u sharaxno si yar oo fudud oo ku wada fahmi karayno anigu kulay aan ku fahmay idina aan doonay inaan idinku fahamsiiyo oo idinka faa'iideeyo aqliga bini aadamku waxa loo qaybiyaa laba qaybood waa hal aqliya laakiin waxa loo qaybiyaa laba qaybood oo magac kala leh aqliga soo jeeda iyo aqliga qarsoon aqliga qarsooni ma seexdo 24 saac uu soo jeedaa isku si buuna u shaqeeyaa laakiin aqliga soo jeedaan u jeedaa wuu seexdaa
marka waxaa jira muuqaal aan kaga hadlaya caqliga qarsoon iyo caqliga soo jeeda iyo siday u shaqeeyaan. waxaan idinku reebi doonaa halkan koor baan idinku reebi doonaa, linkiga hoosna waan idiin soo dhigi doonaa. caqliga hurdada waxaa la yidhaahdaa marka waxaan sharxaynaa hurdada marka hore. hurdada waxaa la yidhaahdaa marka qofku caqligiisa soo jeedayay uu shaqada daayo si waqtiyeysan. weligeed ma aha, maxaa yeelay qofku hadduu maskaxdiisu caqligiisa soo jeedaayo hadduu shaqada daayo uu shaqayn waayo, waxay ka dhigan tahay qofkaas inuu maskaxda ka dhintay. qof maskaxda ka dhintayna waa qof sariir iska saaran oo wuu nool yahay, naftii bay ku jirtaa, wuu neefsanayaa, laakiin waa qof dhintay un bay la mid tahay. laakiin caqliga soo jeedaayo wuxuu shaqada daayaa si waqtiyeysan. murqaha jirkiisuna waxay shaqada daayaan si waqtiyeysan. waa xaalad uu maro noolaha intiisa badan ay maraan. bini aadamka kaliya ma aha, ma seexdaan, maxaa yeelay xayawaanadu way seexdaan. si qofku daalka uu maalinkii soo maray uu uga soo kabto, unugyada jirkiisuna ay isku cusboonaysiiyaan. jirkuna wixii wasakhay ku jirta uu iskaga soo saaro. waa xaalad dabiiciya oo dadka iyo ay wadaagaan, xayawaanada badankooduba ay wadaagaan seexda. su-aashu waxay tahay qofku markuu seexdo caqligiisa soo jeeda iyo murqihiisu siday shaqada u daynayaan si waqtiyeysan. tusaale fudud, qofku markuu seexdo caqligiisan soo jeedayay wuu la seexdaa. marka haddaad weydiisid wax fudud oo ah hal ku dar, qof kastaa garanaya. uma baahnid inaad xisaab baratid saad hal ku dar u baratid. hal ku dar ilmaha yar baa garan kara inay 2 tahay. marka qof jiifa haddaad weydiisid hal ku dar ma garanayo, kama shaqayn karayo xisaabta iyada, kuma jawaabi karayo. haddaad weydiiso magaciisana qof jiifa kuma sheegayo. qof jiifa haddaad ku dul sheekaysood sheeke u qabatood wax u sheegtana, hadduu hurdo dheer ku jiray waxay u badan tahay inuusan kuna fahmin kana falcelinin. haddii uu xoogaa yar soo yara jeeday dhinacna ka jiifay oo konton ahaa 50-50 iska ahaa, waxaa laga yaabaa inuu maaragtay ka falcelin khaldan ka bixiyo, laakiin uusan fahmin weli, maxaa yeelay wuu jiifaa weli. murqahana sida si la-eg, qofku marka uu seexdo ama qofka jiifaayay waxba ma qaadi karayo. tusaale ahaan adigoo jiifa hadeertan sariirtaada, habeenada qaar waxaa dhacda taleefankaaga adoo gacanta ku haya inaad gamaadid. waxaad ku baraarugtaa taleefanka oo dhacay qabtiisa iyo qaylada ka yeedha baad ku baraarugtaa. qof jiifa haddaad gacantiisa soo qabato oo bakeeri saarto, ama markuu seexanayaba uu gacanta wax ku hayay, markuu gamaa wixii uu ka dhacaa, maxaa yeelay murqihii ma shaqaynayaan, way seexdeen. waxay shaqada u daayeen si waqtiyeysan. murquhu iyo xaglaha aadamuhu inay dhaqaaqaan iyo wax walba oo jirka aadamaha ka mid yahay inuu dhaqaaqa ama uu shaqeeyo, waxay ku xidhan tahay caqliga soo jeeda, kaasoo u dira ishaarooyin u dira si ay u shaqeeyaan murqaho. iyo markaad wax qabsanaysid, marka hore gacantaadu iskama laacdo, maskaxdaada ka soo maaxataa marka hore. markay maskaxdaada ka soo maaxato, maskaxdu waxay ishaaro u dirtaa, ama caqligaagu wuxuu ishaaro u diraa gacantaada si ay u soo qabato wixii ay kuugu soo qabato. marka sidaasay caqliga soo jeedayay iyo murqaha qofkuba ay si waqtiyeysan shaqada u daayaan inta uu jiifo. taasi waxay ahayd qeexidda hurdada. sidoo kale waxaa jira muuqaal aan kaga hadlayay hurdada. meeqa saac baad u baahan tahay inaad seexato si aad u hesho hurdo caafimaad leh? marka hoos baan idinku reebi doonaa linkiga, haddii kale kor baan idiin soo saari doonaa si aad u daawataan. hurdadu qofku markuu seexdo waxay martaa 5 marxaladood. 5 marxaladoodii haddii ay isdhex gasho oo sidii loo baahnaa aysan noqonin, waxaa dhacaysa qofka ku dhacaysa waxaa la yidhaahdo qalalka hurdada. marka ugu horeysa oo qofku seexanayo, waxaa seexda caqligiisa soo jeeda. caqligaaga soo jeeda markuu seexdo 5 marxaladood oo min 90 daqiiqo weeye. marxalad kasta waxay qaadataa 90 daqiiqo. marka marxaladda ugu horeysay caqliga bini aadamka seexda, qofka caqligiisa seexda, caqligiisa soo jeeda, ka qarsoon ma ahaya, ka soo jeeda. talabaadina waxay tahay murqaha qofka seexda. marka caqligaagu seexdo, murqahaaga seexanaya. saddexaad waxay tahay riyada. marxalad qofku uu riyoodo, maskaxdiisu way shaqaynaysaa, indhihiisuna waxaa laga yaabaa inay dhaqdhaqaaqa ay badiyaan. qofku wuxuu ku jiraa marxaladda riyada. hurdo aad u qoto dheer buu ku jiraa. waqtigaas waxay tahay waqtiga uu qofku riyoonayo. afraadi waxay tahay murqahaaga soo kacaya marka hore. markii dambe ay ka daba seexdeen, caqliga ka daba seexdeen, caqliga gadaashii ay seexdeen, marka hore murqahaaga soo kacaya, hurdada dabiiciga ah. kadibna waxaa soo kacaya u dambeynaya caqligaaga. marka haddii ay isdhex gasho oo weliba gaar ahaan labadan dambe
meesha murqahaagu ka soo horkaceen caqligaaga haddii caqligaagu uu ka soo horkaco murqahaaga waxaa dhacaysa qalalka hurdada. haddaba waa maxay qalalka hurdadu? tusaale ahaan qof baa seexday habeenkii wuu soo diyaar garoobay markaasuu casheeyey inta uusan seexan ka hor buu casheeyey wuxuu tagay sariirtiisa inta uusan weli gam'in uusan indhaha isku qabanin wuxuu arkayay hooyadiisoo armaajo u dhow dhar ku laalaabaysa ku xaraynaysa siduu u fiirinayay hooyadii u fiirinayay buu iskaga gam'ay sidii ku gam'ay markuu gam'o kow caqligiisa seexanaya caqligiisa soo jeeda seexanaya labo marka qofku caqligiisa soo jeedaayo uu seexday wali murqihiisu aysan seexanin ee marxaladda koowaad ee hurdada uu marayo qofka isaga ah hadaad hurdada ka kicisid ama aad ka nixisid ood ku dhahdid tusaale ahaan dab baa jira soo kac camal saasuu ku kacaya qofkaas maxaa wali murqihiisii maysan dabcin oo maysan maaragtay shaqada joojinin marka qofku uu seexdo marka hore waxaa seexanaya caqligiisii kadibna waxaa seexanaya murqihiisii waxaa la gaarayaa marxaladii riyada marxaladda riyada marka la gaadho laba mid bay noqonaysaa qofkii maadaamuu casheeyey oo cunto weliba cuntooyinka adag sida hilibka iyo uu cunay markuu seexanayay waxyaaba la midka ah calooshiisii dheefshiidku inuu shaqeeyo calooshu ay wax shiidaayey waxay u baahan tahay inay caqligu inuu usoo diro maaragtay ishaaraad inuu usoo diro maskaxdu inay ishaaraad usoo dirto marka ishaaraad markay usoo dirto si ay dheefshiidku u shaqeeyo maadooyinkii laba mid bay noqonaysaa kow inuu dheefshiidku shaqeeyo oo maadooyinkii loo baahnaa intay soo gaadhaan uu shaqeeyo iyo laba in uusan shaqaynin marka haddii cuntadii aad cuntay aysan shiidmin uusan shaqaynin waxaa dhacaysa aad joogtana marxaladii saddexaad ee hurdada ee ahayd marxaladda riyada markuu sii seexanayana qofku uu indhihiisi waxay qabteen u dambeeyey uu ahaa hooyadiisa oo ag joogtay ama qof ag joogay oo wax ka qabanayay qofka waxaa ku dhacaya qalalka hurdada wuxuu bilaabayaa inuu qayliyo wuu qaylinaya wuxuu isku dayaa inuu qayliyo qofkii u yeedho inuu rafrafta galgasho ma dhaqaaqi karayo wuxuu u malaynayaa marka inay wax dhuunta ku dhagan yihiin qof mugdi buu dareemayaa cabsi buu dareemayaa balaayo dhan buu maaragtay qiyaasanaya isagu niyadiisa iska sawiranaya marxaladda marka qalalka hurdadii ihi ma aha marxalad wax badan qofka haysa waa marxalad aslan dabiiciya waxayna qofka haysaa dhowr daqiiqado yaroo kooban ugu badnaan 3 daqiiqo ay haysaa laakiin markuu qofku soo kacay soo baraarugo wuxuu weydiinayaa qofkii ag joogay ma maqlaysa markaan qaylinayay maxaad ila hadli weyday ma dhaqaaqay laakiin marka la fiiriyo qofkii ag joogay ee ag taagnaa haddii la doonaba fiirinaya indhihiisu hayeen wax dhaqaaqa iyo wax qayla midna kuma arkayn hadday u badataba indhihiisu dhaqaaqayeen laakiin jirkiisa meel dhaqaaqaysay ma lahan mana qaylinin cod kama soo baxayn laakiin isaga waxaa u sawirmaysa balaayo inay dhuunta ku dhaganayd wax madow inuu saa u ceejinayay shaydaan inuu dusha ka saarnaa in la dili rabay balaayo dhan cabsiyo dhan buu ku fikiraa qofkaasu kadib markuu hurdada ka soo kaco intuusan soo kicin murqihiisaa jiifay soo maaha murqihiisaa waxay ka soo horkaceen maskaxdiisi caqligiisii markii ay murqihiisu soo kacaan 3 daqiiqo kadib ay soo kacaan wuxuu ku fikirayaa inuu in badan marxaladda iyada ay cabsida uu ku jiray wuxuu isleeyahay saacado badan baa lagu ceejinayo lagu dhaganaa laakiin saacado ma ahayna waxay ahayd daqiiqado yar oo aad u kooban mana qaylinaynin mana dhaqaaqaynin isaga unbaa sawiranaya inuu qaylinayay iyo inuu dhaqaaqayay iyo inay wax ceejinayeen iyo inay balaayo ku habsatay waxaasoo dhan waa wax uu isagu sawirtay uu qiyaastay ee ma ahayn wax xaqiiqo ah sababaha keena inuu qofku maro marxaladda iyada ah ee qalalka hurdada ah waxaa ka mid ah cunto uu qofku cunay markaas inuu ku seexdo markuu sii seexanayo inuu cunteeyo taasaa inta badan dadku dhakhaatiirtu waxay dhahaan qofku yuusan seexanin markuu cunteeyo markaad cashaysid ugu yaraan waa inaad soo jeedid 1 saac si cuntada dheefshiidku u shiidanto kadibna aad si fiican ugu seexan karaysid oodan hurdadaada ugala kulmin wax dhibaato ah way keentaa cuntada lagu seexdo qofka oo dhibaato la kulma hadday noqoto dhanka familka dhanka shaqada dhanka rabta haata dhibaato soo wajahdaay fara badanna way keentaa 3 dhafarta faraha badani way keentaa 4 waxaa keena oo kale qofku markuu yimaado meel uu ku cusub yahay oo kale guri uu ku cusub yahay ama uu yimaado ama waxaan ka wadaa guri intuu seexdo uu kaligii yahay kaligii cidna aysan la joogin uu cabsi iyo waxyaro dareemayo taasna way keentaa kale waxyaabo kale oo badanna laga yaabaa inay keenaan laakiin waa xaalad dabiici ah xaaladda noocaas haddaad isku aragtid waxaa lagu waaniyaa dadka xaaladda noocaas arkay in aysan cabsanin walwalin maaragtay aysan u qaadan inay balaayo ceejinayso marka iyada ah inay ogaadaan maxay caqligaaga qarsooni uu shaqeynaya marka iyada ah
waxaad ku riyootidna isagaa subaxii aad kusoo xasuusataa oo kayd ahoo kaydiya waa bakhaar wax kaydiya marka in uusan qofku walwalin uusan ma aragtay ka walbaharin arrinta ayada mararka qaarna waxaa dhacdaba anigayga way igu dhacdaaba intaan seexdo markaan soo kaco xaaladda ayada aad dareemo soo baraarugo hurdada kasoo kaco waxaa laga yaabaa inay tahayba fajri kusoo dhawaad inay tahay waxaan dhaha waxba hurdaha ku noqon cabsi baa kasoo baxday iska soo jeed inta marka dadka qaar hurdada dib uguma noqdaan cabsi ay ka qabaan inay mar labaad wixii kusoo noqdo sidoo kalena waxyaabahan ka faa'iiday waxaa ka mid ah markii ugu horreysay waxaan arkay qoraalka website-ka lagu soo bandhigay waan akhriyay aad baan ugu qancay waxay ahayd wax uun aan maskaxdayda ku jira laakiin aanan u anbaqaadin aanan doonanin inaan raadiyo wixii oon soo ogaado wuxuu yahay kadibna waxaan daawaday muuqaalo lagaga hadlay dad badan ay kaga hadlayaan intaa wixii ka dambeysay markaan ogaaday bartay waxaan u malaynayaa bilooyinka hor bay ahayd mar mise laba mar baa xaaladda ayada ay qabsatay laakiin si fiican baan ula tacaamulay oo meeshaan cabsida ka dareemi jiray inay balaayo ay ceejinaysay wax inuu saa igu dhagan yahay iyo mugdi iyo wax badan aan sawiran jiray marka iyada waxaan maaragtay dhahaa waa daqiiqada yar way gudbaysaa iska caadi weeye anigoo waxaan iska soo kacaa caadi meeshaan awal anoo cabsanaya oo dhididsan oo wadnuhu sida ay garaacmay kasoo kici jiray marka idina isku daya tijaabiya waxaa laga yaabaa inay idin anfacdo si aanba ii naasibtay qalalka hurdadu ma aha wax shayaadiin la xidhiidha iyo jinni iyo waxyaabaha noocaasa la xidhiidha ma aha mana ahan wax xanuuna waa wax dabiiciya oo la xidhiidha xubnaha ama jirka aadamaha si guudba la xidhiidha weeyaan waxyaabo badan sababo badan baana keeni karaya marka ma jirtana ilaa hadda hal qof oo maaragtay u dhintay lama sheegin ilaa hadda hal qof oo u dhintay sababtaa darteed xaaladda qalalka hurdada waxaan rajaynayaa oon isku dayayna in badan inaan wax idiin sharaxo sidaan anigu u fahmayeen u arkay inaan si fudud idinku sharaxo oo idina u fahamtaan muuqaalka haddaad dhamaysatay oon halkan isla soo gaarnay oon kaaga mahad celinayaa muuqaalkan haddaad ka heshay suulka saar si aad noogu soo biirto subscribe taabo wixii fikir iyo ra'yi isweydaarsiga qaybta hoose ee faalada noogu reeb wayna muuqaalka kan xiga insha allah nabad iyo caafimaad baan idinka tegay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu